markii aad maqasho ereyga professor ama qof PhD sita waxa markiiba maskaxdaadu sawiranaysaa qof da'weyn ama ugu yaraan dhaafay da'dii dhalinyarada hase ahaatee waxa taas beeniyay wiil yar oo dunidu waa aqoonsan tahay professorka ugu da'da yar caalamkan aynu hadda joogno haddaba muuqaalkeena maanta waxaynu ku eegi doonaa taariikhda professorkaas aadka u da'da yar noloshiisa iyo waxa aynu ka baran karno guulihiisa haddii aad ku cusub tahay kanalkan soo dhawow walaal subscribe na saar si aad ula socoto muuqaalada aan halkan soo gelino aad baad u mahadsan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبرنا إساق باري وحاو دشي سقالكي بشي أفراد لبكن لبيا طبان وحاو كودشي مقالة نيويورك إدالك مريكنكا وسقال سنجير وآسيان أمريكان دوني دا آل لوغا يقانو إساقو سيتا درجة بروفيسور كوغير عالمكا دا أهان وحاونا كوغوليستي نوبل برايس ليكتشر مقعا أبهي وراشد الباري magaca hooyadiina waa shahiida baari markii uu jiray 6 bilood waa uu halli karay sidoo kale markii uu 2 sano jirayna waxa uu xallin jiray ka shaqayn jiray su'aal kasta oo xisaab iyo fiisigs ah markii uu 2 sano jiray waxa ay magaciisa oo markii hore ahaa Soborno Barri u bedeleen waalidkiisu Soborno Isaac Barri si uu la mid noqdo caalimkii Isxaaq Newton rantii noloshiisa waalidkii kuma bixin wax dadaala laakiin kadib markay arkeen inuu awood maskaxeed oo saa'id ah leeyahay waxay galiyeen juhdi aad u badan isaguna wuxuu wax fahmi jiray isagoon lala hadlin waxa uu safka hore kaga jiraa ciyaalka ugu caqliga badan dunida sababta ugu weyn ee ka dambaysay in dunidu aragto hibada wiilkan yar waa waalidkiis oo ku faafiyay baraha bulshada fiidiyowyadiisa kadibna ay sababtay inay la soo xiriiraan badi warbaahinta New York waxa ka mid ahaa hadallo uu ku sheegay waraysiye lala yeeshay aabahay waxa uu ahaa arday xisaabta dhigta waxa uu sabuuradda ku qori jiray dhammaan equationska ama mas'alooyinka xisaabta anigu waxaan isweydiin jiray waxa uu ula jeedo waxaana naftayda ku dhihi jiray maalin uun waad u baran doontaa si fiican aabahay wuxuu eegi jiray isku daygayga waxa uuna bilaabay inuu baro xisaabta iyo sayniska kadib waxaan u bartay si aad u wanaagsan maadaama aan jeclaa inaan wax badan ka ogaado dunidan aynu joogno waxaa jira carruur sidiisa oo kale ah laakiin aan taageero helin sidaasna ay ku qarsoonto ama ay ku burburto taalantigii ay lahaayeen Soborno Isaac Barri waxa uu dunida u cadeeyay isla markaana uu si dhab ugu sheegay in kaliya daadu tahay number oo aysan ka tarjumayn waxa aad qaban karto ama aad ka guulgaari karto ha noqoto guul waxbarasho ama mid dhaqaale iyo habmi kasta oo kugu jira Soborno Isaac Barri waxa uu leeyahay YouTube channel oo ay ku xiran yihiin in ka badan 400 oo qof sidoo kale waxa uu qoray buugaag badigood ku saabsan yihiin nabadda iyo jacaylka maadaama uu sheegay inuu aad u jecel yahay nabadda iyo jacaylka wixii ku saabsan sidoo kale waxa uu leeyahay ama soo jeediyay lectures badan oo aad u tiro badan waa tusaale nool oo lagaga dayan karo in qofku hadafkiisa uu gaari karo da' kasta uu yahay iyo caqabad kasta oo haysata taasina aysan ka hor istaageen siduu hadafkiisa u xaqiijin lahaa waxaan ku xasuusinayaa inaad kanalka subscribe saarto sidoo kale muuqaalkan like saarto commentigana nalagula wadaagto wixii aragtidaada ee muuqaalka ku saabsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh